direen agaasimaha oo arintani ka hadlaya waxa uu yiri xabsiyadu waa system aynu leenahay oo dad ay ku xiriirsan yihiin oo ay ku jiraan systemka aynu leenahay waxa dhinac socda system caafimaad oo xabsiyada dhexdooda ah wixii halkaas soo dhaafa wasaaradda horumarinta caafimaadka ayaa tiimam u dirta oo soo eegta wada shaqayn joogto ah ayaanu leenahay ciidamada xabsiga iyo wasaaradda cadaaladda intaba haddii ay timaado qof ama afraad ama dad badan oo xanuunsanaya waxa ay noo soo diraan call ama warqad rasmi ah oo ay yiraahdaan hal noo soo baadho qofka ama kooxda ama xabsiga xaaladiisa waanu tagnaa waxaanu dirnaa shaqaale kala duwan oo caafimaad oo marka ugu horeysa dhakhaatiira marka dambena qoladii shaybaadhku ay ku jirto deedna waxaanu soo hubinaa waxa iyo xaaladda maxaabiistu ay ku sugan yihiin sidan horeba idinku sheegay weli ma hayno xaalad guud oo ma ay ka siman yihiin xabsiyadu oo inay dad aad u xanuunsanayaan qof weligeedba way dhici jirtay in qof xanuunsado ka mid ah xabsiga qofka xanuunsada wasaaradda horumarinta caafimaadku way soo eegtaa haddii aanu ku filayn unuga ama unitka xabsiga joogay caafimaadku dadna waa naloo yimaadaa dhakhaatiir baan u dirnaa tusaale ahaan imika mar dhow waxaan u dirayaa dhakhaatiir xabsigan dhexe oo soo eegaya qof xanuunsanaya waa qofkaasi xaaladda uu marba ku jiro ayuunbaa lagula tacaalayaa oo lagula dhiilgaraynayaa xanuunkuna bulshada unbay ka mid yihiin oo ma dhammaanayo dadka xabsiga ku jiraana way xanuunsanayaan dadka kale bulshadana xanuun u imanaya laakiin wax xanuuna oo xaaladan imiga ay waddanku ku jira la xidhiidha oo xabsiyada hadda ka jira oo aan ka warhaynaa ma jirto ninka wariyaha waxaa naloo sheegay in xaalad caafimaad ay jirto tiim ayaanu dirnay waxa uu leeyahay calaamado neef mareenka ah sidaynu horeba in badan u sheegnay calaamadaha kasta oo neef mareenka ay ma noqdaan covid-19 intaas oo calaamadood ayaa jira oo neef mareenka ah oo ay keeni karto oof oo ay keeni karto xiiq oo ay keeni karto xanuunada kale bronchitis iyo wax lamida oo neef mareenka ku dhaca tiimkii aanu dirnay sambaleskii ay soo qaadeen qaybtii hore ee aan halkan ku eegnay wax dhibaato ah oo aan ku aragnay ma jiro gargaarkii u horreeyeyna waa loo sii fidiyey mana hayna ilaa imika in xaaladiisu ay la xidhiidho xanuunkan aynu imika ka hadalno laakiin waxa weeyaan xanuuno neef mareenka ah oo uu ka cawday dhakhaatiirtii way u tagtay wixii taageero marka ay u fidinayeenna way u fidiyeen shaybaadhkiisii qaybtii hore waxaanu aragnay inay negative tahay hubinna waanu dirnay oo waanu sugaynaa jawaabta laakiin ilaa imika waxaa noo muuqdaa inaan wax xanuunkaa ula taxalluqaa aanay jirin dhinaca kale agaasimuhu waxa uu ka warbixiyey xaaladihii ugu dambeeyay covid-19 ee Soomaaliya 24 saacadood ee ugu dambeeyay maanta oo ay bishu tahay 29 bishii afraad 2020 waxaynu mar kale isugu nimi kulankeenii maalinlaha ahaa ee aynu ku kala qaadan jirnay warbixinta maalinlaha ah ee xanuunkan covid-19 gaar ahaan xaaladda iyo halka uu marayo qarankeennan Jamhuuriyadda Soomaaliland alxamdulillaah ilaahay ayaa mahadle wali xaaladeennu waa sidii hore 6 qof wax inoogu soo biiray oo confirm ah ama case kale oo la cadeeyay oo ilaa imika ay wasaaraddu cadeysay oo ku soo biiray ma jiro 6 case sidaan horeba aynu sheegnay 3 case oo kamid ah ayaa bogsaday alxamdulillaah marka kaysaska imika ay wasaaraddu la socotaa waa 3 case iyaguna aad iyo aad ayay u caafimaad qabaan waxa kale oo aan doonayaa inaan idinla wadaago in shaybaadh aanu ka qaaday caasimadda iyo meelo kale oo waddankaaba ay inoogu maqan yihiin confirmation oo aynu heli doono jawaabtooda dhowaan shaybaadhadaasoo ilaa 36 shaybaadh ah waxa kale oo aan doonayaa inaan idin sheego in numberka guud ee shaybaadh ilaa imika aynu sameynay ay yihiin 208 qof
waxa kale oo aan jecelahay inaan idiin sheego inay weli socoto hawshii screeningka ahayd ee aynu ka wadnay xuduudaha dalka iyo meelaha dalka laga soo galo. hawshaas screeningka ahi waa hawl maalinla ah oo aynu kaga hubinno cidday noo soo gelaysaa inay leeyihiin calaamadihii xanuunka iyo in kale, iyadoo la eegayo xumad iyo calaamadaha kale ee xanuunkani uu leeyahayba. marka 24 saacadood ee u dambeeyay waxaynu hubinay 1240 case ama qof oo inoo soo galay oo meelaha kala duwan ee xuduudeena ka soo galay oo inta badan la socday baabuurta ganacsiga ayaynu eegnay oo aynaan ku arag wax xanuuna ama wax calaamadihii xanuunka ah iyo wax xumada midna. dhinaca call centerka sidaad ogtihiin waxa inoo bilaabmay oo muddo inoo shaqaynayay oo si wacan u shaqaynaya call center ku yaala xarunta dhexe ee wasaaradda, kaas oo shaqaale caafimaad oo tababaran ay heegan ku yihiin oo ay maalin wal iyo habeen walba u jawaabaan dadka soo call gareeya ama ka raba inay talo caafimaad helaan. haddii aan dib ugu noqdo 24 saacadood ee u dambeeyay waxa call soo diray oo lala hadlay ama talo caafimaad la siiyay 11,030 qof, iyada oo guud ahaan marka la isku wada daro intii xaruntaasi ay shaqaynaysay dadka soo wacay ama soo garaacay callkaas ama weydiiyey talo caafimaad ama la soo hadlay ay yihiin 407,205 qof oo dhammaantood ay la hadleen shaqaalaha kala duwan ee halkaa diyaarka ku ah ee ah xirfadlayaasha caafimaad ee call centerka jooga. weli waxa xarumaha karantiinka inoogu jira dad aynu ku hayno oo dibadda inooga yimi oo weli ku jira waqtigoodii aan dhammaysan. dadkaasi waa 11 qof. waxa kaloo iyaduna jirtaa dad aynu systemka ay wasaaraddu samaysay ee la iska diiwaangeliyay dadka volunteerka ahi maalin walba iska soo diiwaangelinaya. dadkaas oo ah xirfadlayaasha kala duwan caafimaadka oo aan jecelahay inaan halkan uga mahadnaqo ilaa imika intaysa soo diiwaangelisay ee ugu tala gashay inay si volunteer ummadooda ugu shaqeeyaan. dadkaasi waa 778 qof oo xirfadlayaal caafimaad oo kala duwan ah. waxa aan bulshada u sheegayaa inay wasaaraddu bilowday inay soo baadho gobollada kala duwan ee dalka iyada oo ka soo qaadaysa saamballo ama shaybaadh dadka xumada leh ama qufaca qaba ee gobollada kala duwan. gaar ahaan waxaan bilownay inaanu magaalooyinka waaweyn ka bilowno iyada oo qaybtii ugu horreysay aan ka qaadnay magaaladan Hargeysa, Burco, Berbera, Boorama, Laascaanood iyo Ceerigaabo. intaba waa ay ka socotaa hawsha saambal qaadida ahi. waxaan doonaynaa inaanu saambal size wanaagsan helo deedna aanu shaybaadh halkana ku eegno dibaddana u dirno si aynu u ogaano bal in wax community transmission uu ku jiro bulshadeena iyo inaanu jirin. taana si wanaagsan ayaan idinla wadaagi doonaa iyada oo ay soo dhamaanayso dhowrka maalmood soo socda. jawaabtuna ay 2-3 maalmood markaa qaadan doonto iyadoo markaan idinla wadaagi doono wixii ka soo baxa. waxaan jecelahay inaan bulshada u sheego inay xaaladdu ay degan tahay laakiin aynu weli ku jirno diyaargarow xoog ah. waxa aan jecelahay dadweynuhu taladii iyo tusaalihii ay qaateen inaanay dabcin inay sii kordhiyaan mooyaane. talada iyo tusaalaha aynu siinay aynu wacyigelinta aan maalin walba hawada u soo marinaynay ee aan leeyahay bulshadeennuna iyaguna way u dhaganuglaanayaan oo way qaateen. waxa ka mid ah in aynu kor u qaadno nadaafadda guud iyo nadaafadda gaarba, inaynu badino faraxalka waqti kasta iyo goob kasta oo aynu ku aragno faraxal inaynu faraxalano oo aynu dhaqan aynoo noqoto inaynu mar wal aynu dibad u baxno, mar wal aynu hawl qabanno, mar wal aynu taabanno meelaha aynu ku shaqaynayno inaynu haddana faraxalkiina raacino aynu faraxalano iyada oo taa ay dhinac socoto inaynu kor u qaadno guud ahaan nadaafadeena hadday tahay nadaafadda qof, nadaafadda qoys iyo nadaafadda qaran intaba. waxa kale oo aan jecelahay inaan bulshada
aan kula dardaarmo inay kor u sii qaadaan oo ay halkii hore iyo meel ka sii sarreysaba geeyaan social distance-ka iyo kala fogaanshaha. waxaan kula dardaarmayaa inay bulshadu guryaheega joogto bisha Ramadaan habeen iyo maalinba oo qofkii aan hawl weyn u baxayni gurigiisa ku cibaadeysta bisha Ramadaan oo gurigiisa joogo si aynu u qaadano nidaamka aynu nidhaahno social distance-ka kaasoo ah aalad aynu kaga hortagi karno xanuunkan oo aan lahayn daawo ka hortag mooyaane. waxa kale oo aan bulshada aan kula dardaarmayaa in qofkii calaamadaha xanuunka isku arkaa uu soo garaaco numberka 988 si uu ula hadlo shaqaalaha kala duwan ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee diyaarka ugu ah goobta call center-ka si ay u siiyaan caafimaad iyo wixii uu tabayay ay dabadeedna talo wanaagsan halkaa uga siiyaan. waxa kale oo aan bulshada kula dardaarmayaa in qofkii calaamadaha durayga yeesha uu ka fogaado in uu la yimaado meelaha ay dadku isugu yimaadaan gaar ahaan masaajidada meelaha saribadaha meelaha dadku isugu yimaadaan. cabdiraxiin muuli ismaaciil shabakada wararka Kaylis News magaalada Hargeysa.